waxaan idinla wadaagayaa anigu luqooyinka ma aqaan carabigana waa fahmaa soomaaligana waa u dhashay oo waan ku hadlaa waa aniga idin kula hadlaya sawaaxilina ma aqaan englishna ma aqaan mashaakil iga soo gaaray baan rabaa inaan idinla wadaago cajiib ah waa wax mudnaa inaan ummadda wax ugu qabto oo luqa iyo ciisho ila hartay midda koobaad waxay ahayd masaajid aan darsi ka akhrinaya anoo ka soo baxay alfirdows bacda alcishana ay tahay waayihii hore islii waxaa aad ugu badanaan jiray niman askarahoo dadka qabsado habeenkii iskala wareega waad garanaysaa soo ma waxaan u imid gabdha laba ah oo niman qoryo dheer oo askaro meel luuqa kula jiraan oo haystaan gabdhihii baan marka waxaan weydiiyey war maxaad idinku haystaa midi waxay tiri ay dhiigi baan ka soo tagayoo gurigaan Sheekh Cabdi Naasir baan kaga soo degay tiri waana la ii soo wada tii kalena waxay tiri baasaboor kanadiyaan aan lahaayo odaygaygii baa ii soo wada inta markay yiraahdeen tii ay dhiiga la rabtay isla markiiba waa loo keenay waa la sii daayay tii tiro odaygaygii baa baasaboorka ii soo wada bay ku dhageen marka inay jiitaan bay rabaan marka kaxeeyaan ana intaasaan diidanay waxaan rabay bal inta la soo gaarahayo intiina ma aqaan waxaan ku yiraahdo waxaan isku dayay marka sawaaxil inaan ku hadlo waxyaalaha cajiibka noqday waxaa ka mid ah waxaan rabay inaan iraahdo odaygeedii baa soo socda soo musay lama yiraahdo odayga miisi baa taan ku yiraahdo askariga show miisi nibada waa tuug baa tamiya mimi aniga miya English aan meel ka keenay aqoonyo wixii baramina yes baa iri katiinad bay la soo bixin aniga ilaana dambi baan dhex gala inay xiraan ayagoo raba nin baa iga fakiyo wixii ninka maskaxda looga jiraa iska sii daayay ogow hada waxa niyadaha ugu jirtay waxay aad wax fiican oo walaalka caawi ah oo wax u tar waa qayb dacwo kamid ah laakiin aniga waa katiinada iga sii daayay waxaan la igu sii daayay inaan ahay nin waalan waxa iga sii darnay taas masaajidka hidaayaan oo dhex fadhiya oo ay rabadaan tahay waxaan u maleynayaa kii hadda inay soo dhaafay kii ka horreeyay ah waqti 9 saac meelahaasna ay tahay iska quraan akhrisanaya ninba ii yimid bulshadana inuu ku dhex noolahay markaasuu ila hadlo wax igu daldala waxaan u qaatay marka masaajidana waxa ku badan salaadaha marka laga baxa gadaashooda dad yimaado dawarsada soo midaan arag aad bay ugu badan yihiin habda uu yimaada marka Soomaaliya ku laadla Ilaahay ku sahlan iraada waxa ma haye waxaan u qabaa inuu tuugsanayo wuu igu soo noqday mar labaad mar saddexaad warkan la kadka muxuu ah anoo aad u karaahsanaya ayuu iga tagayo niman gadaal fadhiyay buu u tagayo nimankii bay iswareysteen ninku waa nin raba inuu islaamo oo tawxiid loo qabto wuxuu maanta dhan ugu wareegayaa war la ilaaha illa allah uu qabo ana warada dhaafan ku leh waa jaway kuwaas ku maanta dhan markii la ii keenay baa la tawxiidka uu qabo markaas aan tawxiidka u qabtaan bal u turjuma soo fursad qaaliyo marka hore ma dhaafin ilaahay baa caynshay marka intaas ha ugu yar waxyaalaha laga yaabo luqa yaradii iyo aqoon yaridu inay ka hadlayso ilaahay hadduu luqadii idin baray oo idin fududaatay dhalinyaro ka faa'iideysta qofka daayarta oo ilaahay diintiisa yaqaan oo ku dhashay oo waxa weeyaan nicmo haysta sida culimadu tilmaamayeen waxaad xasuutaa nabiyullaahi yuusuf oo dhalinyaro ah xabsi galay xabsigu waa meel dib badan inaga waxa laga yaabaa dhalinyaradeen inay ka soo baxaan ayagoo raamo leh oo dhibaataysan oo ayagoo muslimiin laakiin nabiyullaahi yuusuf markuu xabsiga galay dadkii xabsiga joogay diin buu u sheegay tawxiid buu u sharxay ilaa markii dambe ay ku yiraahdeen inna naraaka min almuhsinin dadka wanaaga ka shaqeeyo samafalayaasha inaad ka mitaan ku aragna nabiyullaahi yuusuf oo dhalinyaro ah nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo fircoon ka cararay oo aan rasuul ahayn oo madyan soo galay ayaa wuxuu yimid gabdha dayacan oo ceel la shubanayo raggii murqaquusta ahaan ay xoolihiisa ka shubanayaan gabdhihiina halka ay xoolaha la joogan su'aal buu weydiiyay ma khatbukuma dadku xoolaha shubanayaan maxaa meesha idin waa qayb dacwada kamid ah garalaftirkeed waa diin ilaahay waxay ku yiraahdeen anagu ragga ma dhex gali karno aabaha iyo hadduu shubi lahaana waa waayeel xaggan uga soo tagna wuu caawiye marka shaqo ma haysto khayr ma ule xoolo ma haysto nabi ma aha waa gaajaysan yahay waa soo cararayo waa waxa weeyaan ruux muhaddad oo la raadsanhayo weeye ومع ذلك أسوق أنت صدروف أي كحرة هاي كالنتي وانا جاهد يتوحيد كي خيرك وكغيب قطوي بلشيء يقبل يضد عفاه وعاوية وحنا وقت إلهي الدين تي سي توحيد كي سأضع شرفك يا لنا يا مركز الدين تجارسي سيدتك لكن وحول بوحد وجهته نفط هذا وحول بكاغه الرئيس دين إلهي بركو كون دقة
haddii kale waxaad soo gelaysa haddaad maanta dhan ku talagashid inaan dadka la hadashid mooyaane inaad naftaada dayacdid ina allaha la yu'ayidu hada diina birajuli faajir kuu nebigu sal alay wasalam diinkan ilaahay mararka qaarkood wuxuu ku taageerayaa ku xoojinayaa inaan ilaahay agtiisa qaymo ka lahayn oo faajir ah oo nin xun ah ayaa laga yaabaa muxaadarooyin inuu jeediyo ayaa laga yaabaa inuu kitaabo qoro ayaa laga yaabaa inuu dad soo islaamiyo asaguna uu yahay ilaahay agtiisa mid aan qaymo ka lahayn nabi maxamed baa xadiidkaa yidhi sal alay wasalam qisuuna ku yimid qisadu waxay ahayd ayadoo jihaad lagu jiraa nebigu raggii la socday nin ka mid wuxuu yidhi ninkaas waa ahlu naar saxaabadu ka tirsan yahay yaa dagaalkii baa bilowday ninkii wuxuu noqday raggii meesha ka dagaalamayay raggii ugu geesisanaa oo ugu dagaalyahansanaa ayuu ka mid noqday dhaawacyo badan baa soo gaaray kabacdina dhaawacyadii qaar ka miduu u dulqaadan waaye wuu isdilay markaasay saxaabadu nebi maxamed u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam ninkii aad ku sheegtay asagoo ahlu naara marka horena saan u dhaawacmay haddana waa kon asagii baaba isdilayba markaasuu yidhi ilaahay baa ii run sheegay subxaana wa tacaala macnaha ilaahay waa u rumeeyey nabiyullaahi maxamed sal allahu alayhi wasalam wixii uu sheegayay marka intaad noqon lahayd kuwa noocaas ee dabka lagu shido ayaguna dadka u ifo wax u shida waxaad noqotaa ruux wanaagsan oo diinta ilaahay barta kuna dhaqma dadkana gaarsiiya sidaasaadna qaymo ku yeelanaysaa luqooyinkana ilaahay subxaana wa tacaala luqo kastoo lagu hadlo haynoo fudayo inaynu khalqigiisa ku gaarsiino diinta ilaahay uu raalliga ka yahay aad baadna u mahadsantihin walaalaha hawshaa u taaganna ilaahay subxaana wa tacaala ajaraan dhammaan ha siiyo waa hawl wanaagsan waa hawl cizo iyo sharaf iyo karaamo ah waa waajib ina saaran inaynu ummadda iyo khalqiga diinta ilaahay nu gaarsiino waana wadiifadii iyo shaqadii ambiyada ilaahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu